soo dhawaadaha aad iyo aad u mahadsantihiin waa 4/29 bisha koowaad ee January sanadka 2025 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago madaxweyne Donald J Trump ayaa maanta waxa uu saxeexay sharcigiisii ugu horeeyay oo Congress-ka ay meel mariyeen ilaa iyo markii madaxtinimada loo dhaariyay 20kii bishan aynu ku jirno sharcigan waa kii ugu horeeyay ee Congress-ka ay meel mariyeen ee Trump uu qalinka ku duugo waana sharci immigration kaasi oo halis ku ah dadka soo galootiga ah ee wadanka ay sharci darada ku soo galay sharcigan waa sharci 3 toddobaad ka hor aan ka soo hadlay oo ah sharcigii loogu magac daray gabadhii ardayda jaamacadda ka ahayd gobolka Georgia ee Laken Riley sharcigan waxa loogu magac daray iyada oo waxa la yiraahdaa the Laken Riley Act ayaa la yiraahdaa sharcigan markaa laba xubnood oo Republican oo ku kala jira sanadka iyo sidoo kalena aqalka wakiilada ayaa soo diyaariyay labadaas xubnood waxa kala yiraahdaa Katie Breed oo aqalka sanadka ku jirto oo laga soo doorto Louisiana iyo sidoo kalena Mark Collins oo Georgia laga soo doorto oo isaguna aqalka wakiilada ku jira marka Trump intii ololaha uu ku jiray ayaa waxa uu gabadhan magaceeda ku celcelinayay maadaama soo galooti sharci la'aan oo wadanka Venezuela ka yimid uu gabadhan ardayada dilay 22kii bishii labaad ee February ee sanadkii 2024 ee dhamaaday xilliga subaxdii dadku alamiitada orodka ay aadaan iyadoo ordayso uu arkay kadibna inuu kufsado isku dayay waa ay qaylisay kadibna waa uu dilay markaas kadib waa la soo qabtay isagana maxkamad ayaa la saaray xabsi daa'in ayaa lagu xukumay 20kii bishii 11aad ee November ee sanadkii dhamaaday marka sharci iyada loogu magac daray oo the Laken Riley Act ayaa labada aqalka wakiilada iyo aqalka sanadka ay meel mariyeen Trump ayaana maanta saxeexay waxaanu noqday sharcigii ugu horeeyay ee Trump uu qalinka ku duugo oo Congress-ka ay meel mariyaan goobta waxa joogay xubnihii labada aqal ee sharcigan soo diyaariyay gabadha hooyadeed iyo aabaheed oo Alison iyo John la yiraahdo iyo walaasheed oo la yiraahdo Lauren iyo qaar kamida eheladooda oo aqalka cad tagay markii sharcigan la saxeexayay Trump khudbad ayuu jeediyay ka hor intii uusan sharcigan saxeexin khudbadaasi waxyaabo fara badan ayuu uga hadlay oo ay kamid tahay in qaar kamida dadka halista ah ee dambiilayaasha ah ee Mareykanku uu doonayo inuu celiyo uusan wadamadooda ku celin doonin uu xabsiga Guantanamo uu ku xiri doono arintaasi waan idin la wadaagayaa Trump markii uu sharcigan saxeexay waxa dhinacyada ka taagnaa waalidiinta gabadhaasi dhimatay ee sharcigan loogu magac daray qaar kamida xubnaha Republicanka iyo Dimuqraadiga waliba waa ay joogeen qalinkii uu ku saxeexana gabadha hooyadeed ayuu u dhiibay halka qalimaan kale oo meesha tiilana aabaheed iyo xubnihii sharcigan soo diyaariyay waliba gabadha walaasheedii uu ku wareejiyay marka sharcigan the Laken Riley Act Trump waxa uu yiri gabadhaasi waxa sharcigan uu yahay kii ugu horeeyay oo ilaa iyo markii madaxweynaha 47aad aan noqday aan saxiixo waxana uu sheegay in gabadhaasi 22kii February uu dilay kooxahan gangiska ee Venezuela ka yimid Trenta de Aragao la yiraahdo inuu ka tirsanaa ninkan Jose Ibarra oo gabadhaasi dilay waxana uu sheegay wadanka inuu soo galay 22kii sanadkii 2022 kadibna New York lagu xiray oo la soo daayay Georgia markuu yimid haddana la xiray wuxuu yiri maamulkii hore ayaa dambiilahan wadanka ku sii dhaxday oo iga horeeyay maamulkii Biden ayuu ula jeedaa marka sidaa darteed waxa uu yiri ma hilmaami doono gabadhan sharcigan ayaana magaceeda lagu qoray Trump marka oo arimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri The Laken Riley Act will become the very first bill that I proudly sign into law as the 47th president of the United States. Laken was a brilliant and beautiful 22-year-old nursing student from Georgia, the best in her class. Just after 9 a.m. last February 22nd, Laken went out for a jog on the campus of the University of Georgia, but she was just never returned. She never came back, did she? Huh? While on her run, Laken was attacked, viciously assaulted, beaten, brutalized, and murdered by an illegal alien gang member who was set loose into our country by the last administration. We are deeply honored to be joined today by Laken's parents, Allison and John, and her sister, Lauren. Thank you very much. America will never, ever forget Laken Hope Riley. The vicious criminal who murdered Precious Laken was an illegal alien member of the barbaric Venezuelan prison gang known as Tren de Aragua. He trespassed across our southern border in 2022 and was apprehended by Border Patrol, but under the cruel policies of the last administration, instead of being deported, as he should have been, he was released into the United States, as were millions of other
people, many of them very dangerous people. And you see what we're doing, we're getting them the hell out of here. madaxweyne Donald Trump waxa uu sidoo kale ka hadlay sharcigan waxyaabaha ku jira sharcigan the Laken Riley Act waxyaabaha ku jira ayuu ka hadlay waxa uu yiri sharcigan waxa uu dhigayaa ama ku qoran in wasaaradda amniga gudaha ay xiri karto dhammaanba qof kasta oo looga shakiyo sharcigan oo dad soo galootay sharci darrada oo looga shakiyo in uu waxaday inuu dhac geystay inuu meel gubay ama ganacsi ama guri uu gubay iyo sidoo kalena shoplifting waxa la yiraahdo dadka intay dukaamada galaan alaab ka soo qaato sidoo kalena waxa ku jirta qof dhibaato u geystay boolis qof dil geystay oo sharci darro laakiin arinta Soomaalidu ay ka soo galayso waa halkan dad fara badan inta badan Soomaalidu waxna ma dhacdo dilkay kuma lug lahayn in badan dadka soo galootiga way is ilaaliyaan laakiin arintan wuxuu yiri dambi kasta oo ay ka dhalan karto ayuu yiri dhimasho ama dhaawac khatar ah dadka inta badan leysan ay qaateen wadanka sharci darrada ku soo galay adoo gaari wada marka uu xawli ku wada xawaare ka daran xawaarihi loogu tala galay wadadaasi hadii qof muwaadin ah dhaawacdo dhaawac halis ama aad disho waa lagu xirayaa horeyna waa laga masaafurinaya marka arintaasi dadka taraagiyada wada oo wadanka sharci darrada ku soo galay kuwa gawaarida yar yar wataba waa inaad sharciyada wadooyinka aad u hoggaansantaan arintaasi saameyn ay meeshaasi dadka Soomaalida ay uga yeelan kartaa marka waxa uu yiri arimahaasi oo idil qofkii lagu helo waxay macnaheedu tahay waa la xiri karaa waana la masaafurin karaa markii ugu horeysay sharcigana gobolada waxa uu ogolaanayaa inay dacweeyaan dawladda federaalka hadii ay ku guuldareysato sharciyada immigrationka ee wadanka inay dhaqan geliso gobolada ayaa taasi awood u siinaya Trump oo arimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri Under the law I'm signing today, the Department of Homeland Security will be required to detain all illegal aliens who have been arrested for theft, burglary, larceny, shoplifting, assaulting a police officer, murder, or any crime that results in death or serious injury. In addition, for the first time ever, this act gives state governments the ability to sue the federal government for immediate injunctive relief if any future administration ever again refuses to enforce the immigration laws of the United States, like happened for 4 long years. madaxweyne Donald Trump waxa uu sidoo kale amaanay ninka uu xil saaray arimaha xadka iyo masaafurinta Tom Homan iyo wasiirka amniga gudaha Kristen Noem oo labaduba meesha fadhiyay waxa uu yiri Tom Homan waa saaxiibkay waana sidoo kalena qof qaas ah waxa uu yiri tirooyinka aan arkayno waa tirooyin la yaab leh waxa uu yiri xadka oo aan ogeyn in sanad ka hor sidii uu ahaa oo kumanaan qof ay maalin kasta soo galayeen hadda waa zero oo hal qof iskuma soo dayiyo inuu xadkeena soo galo dad badan arintaasi waxay u maleynayeen in aysan suuragal ahayn Tom Homan oo waxa la arkay sidoo kale sulka u taagay Trump oo dhahayo hawl fiican ayaan halkaasi ka wadnaa Trump waxa uu sidoo kale yiri ilaa iyo September sanadkii la soo dhaafay ee 2024 425 oo soo galootay sharci darrada oo dambiilayaal ayaa wadooyinkeena waxa uu yiri sidaas u dhex mushaaxay iyagoo xur ah waxaana kamid ahaa 13099 qof oo iyagana dambi lagu helay 50% wuxuu yiri hal qof iyo ka badan ayay dileen marka sidaa darteed waxa uu yiri hadda waxa ay dadkaasi markii hore beeraheena iyo magaalooyinkeena ay dhex socdeen laakiin hadda maamulka Trump intii uu jiray waxa uu yiri degdeg iyo xawaare ay ku socotaa in dadkaasi wadankeena aan ka saarno isagoo sheegay in hadda Tom Homan iyo Kristen Noem hawsha ay wadaan uu yahay hawl uu ku faraxsan yahay Trump oo arimahaasi ka hadlayayna mar kale waxa uu yiri Tom Homan is my friend, but he is something special. He's something special. Right. And Tom and Christy, the numbers are unbelievable. What's happened? It's like just shut down. Nobody thought that was even possible. It's just shut down. They showed an area that a year ago had thousands and thousands of people rushing into our country. And today there was nobody there. It was like a beautiful sight. As of last September, 425,000 illegal alien criminals were roaming free, including 13,099 convicted illegal alien murderers, of which about almost 50% killed more than one person, and they were roaming all over the country in our farms, in our cities. Under the Trump administration, we're moving with urgency and speed to get these vicious and violent criminals the hell out of our country and to restore law and order to our suburbs, our cities, and our towns. And we're going to do it with Tom and with Christy and with all of the people that are working so hard on this. This week, compared to a comparable time a year ago, think of this,
The number of illegal border crossers has already fallen by more than 100%. ugu dambeyntii madaxweyne Donald J Trump waxa uu sheegay inuu saxiixay maanta wareegto kale oo ku amrayo wasaaradda amniga gudaha iyo wasaaradda gaashaandhigga uu leeyahay xabsiga Guantanamo waa in la diyaariyaa goob qaada ilaa iyo 30,000 oo qof oo sariiro halkaasi la dhigaa waxaana geyn doona ayuu yiri maxaabiista kuwa ugu xun oo yiri dambiilayaasha kuwa ugu xun kuwaasi oo xitaa aanan ku aamini karin ayuu yiri dadka in ay wadamadoodii aan u dhiibno maxaa yeelay ayuu yiri dib ay noogu soo laabanayaan haddii aan wadamadooda aan u masaafurino waxaana uu sheegay sidoo kale inay adag tahay in xabsiga Guantanamo laga soo baxo waa meel ay adag tahay in laga soo baxo ayuu yiri marka sidaas darteed ayaa waxa uu sheegay in dambiilayaasha kuwa ugu xun aysan wadamadooda u dhiibi doonino halkaas ay geyn doonaan xubnaha Congress-ka ama aqalka Congress-ka ayaa sidoo kale waxa uu ka codsaday in ay lacag ay ansixiyaan taasi oo sheegay inaan dib ugu soo celinayno madax banaanida xuduudaheena wadankana aan uga masaafurinayno ayuu yiri tiro fara badan oo soo galooti sharci darro ah marka Trump oo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri Today I'm also signing an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000 person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it. We have 30,000 beds in Guantanamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back, so we're going to send them out to Guantanamo. This will double our capacity immediately, right? And that's a tough place to get out of. Today's signings bring us one step closer to eradicating the scourge of migrant crime in our communities once and for all. And it was just it's just an unforced error that we even have to be doing this. Now we need Congress to provide full funding for the complete and total restoration of our sovereign borders, as well as financial support to remove record numbers of illegal aliens. sidoo kale madaxweyne Donald Trump intii hadlayay waxa uu sheegay wareegtadii shalay lagu muransanaa oo la dhahayay deeqihii gobolada Mareykanka la siin jiray ayaa la joojiyay arintaasi aqalka cad waxa uu sheegay Trump in ay dib uga laabteen oo hadda wareegtadaasi gabi ahaanba ay dawladdu ka laabatay shalayna waa anagii ogeyn in garsoore oo arintaasi joojiyay ilaa Isniinta soo socota marka aqalka cad dib ayuu arintaasi uga laabtay sida Trump uu sheegay dadkii la dhahayay section 8kii iyo caafimaadkii iyo waxyaabo fara badan ayaa wareegtadaasi Trump uu joojiyay marka aqalka cad maanta waxay cadeeyeen inay dib uga laabteen aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi